maanta waxaa halkan isugu yimi kulan afur ah guddida abaabulka iyo guddidii qabanqaabada siyaasadeedka rajo iyo xubno ka mid ah golaha sare ee siyaasadeedka rajo kuwaasoo ka arrinsanaya xaaladda dalku imika ku jiro oo ay ugu horreyso masiibadii runtii qaran ee ka dhacday suuqa waaheen iyo sidii urur siyaasadeedka rajo uga qayb qaadan lahaa howlaha iyo wixii qorshe ahaan uu ka yeeli lahaa iyo waxa kaloo halkan runtii isugu yimaadeen in wixii macaawino ah waan ognahay dalku imika xaalad adag buu ku jiraa inagoo ku jirna xaalad abaara iyo sixir barar waxaan halkan aan isku soo taagay anaa ku hadlay ururka rajo afkiisa inaan ka tacsiyadayno masiibadii ilaahay keenay ee ku dhacday suuqii weynaa ee East Africa ka saddexaad noqonayay ee ku yaalay magaalada Hargeysa kaasoo dhammaanba sida ay moogtay dadkii ay ka gubteen maalku say uga xumaadeen si moogtay la mid aan uga xumaanay uga damqanay yaan ka tacsiyadaynayaa intaa waxaan raacinayaa dad muslim ayaynu nahay iibaankeenuna moogtay intaa ka weyn ilaahayna wuxuu inoogu bedeli doonaa ugu bedeli doonaa wax ka khayr badan waxaan shacabka Somaliland aan ugu baaqayaa in garab la siiyo dadkii moogtay hantidaas ay ka baxday dhammaan shacabka Somaliland hadday tahay moogtay ganacsadayaal iyo hadday tahay moogtay maxaa madaxa qaranba intaa waxa ay dheer inaan baaq dheer u dirayo cod dheer anoo ku hadlaya urur siyaasadeed ka curtay geyiga Somaliland min galbeed ilaa bari ilaa xundurta waa urur leh han karti aqoon gacmo fayow kaas oo doonaya inuu ka qayb qaato ururada ka jira dalkeena maanta ajandahayagu ma aha xisbi laakiin ururka rajo maanta waxa uu muujinayaa dadkii ganacsatada ahaa ee reer Hargeysa iyo suuqeennii ugu weynaa ee mandaqada Afrika ka ahaa suuqii afraad inay la qaybsadaan dhibta ayna aad baynu uga xunnahay laakiin waxaynu ku bogaadinaynaa dadka inay gacmaha isqabsadaan oo ay hore u socdaan waana laga gudbayaa meeshan meel kala daran baynu ka nimid si kastaba ha noqotee waxaan leeyahay waxaan si gaara ula hadlayaa dhalinyarta Somaliland meel walba ay joogaan waqti badan baa waxa la yiri ceelna uma qodna cidna uma maqna maanta waxaan leenahay ceelna waa idin qodan yahay cidina waa idin mucaarad iyo muxaafid ee danta guud ee shacabku ay mid tahay wax la isku khilaafo ama faa'iido laga dayaana aanu meesha oolin sidaa daraaddeed ayaan maanta u qabanay shirkaas waxaana leenahay dhibaatadaas waa dhibaato caama waa dhibaato shacabka gaadhay dadkii ganacsatada ahaa heer kastaba ha aadeen ama darajo kastaba ha joogeen geela waxa lagu baqaska waxa la yiraahdaa waxa lagu jabiyaa ninka reer miyiga ahi xoolaha uu ka keenay miyiga ee carruurtiisii ka gaajoonayso ee sixir bararku hayo ayaa geel halkaa la daajinayo inta la keeno sayladda ayaa dib loo celiyaa geelaa waxa lagu jabinayaa geela ninka miskiinka ay leeyahay warwalka oo iyagana xisaabtooda meel la dhigo la liiskareeyo waayo iyagu waxay ahaayeen halbowlaha suuqaba ayay ahaayeen qoladaana in il gaara lagu eego ayaa waajib ah maanta ma joogno meelaynu muxaafid iyo mucaarid ay iska hor yimaadaan maanta uma taagnin maanta waxaynu dhalinyarada iyo waxbarashada inay kor u qaadaan iyo inay dhalinyaradu baraarugaan oo soo jeestaan tixdan waxay odhanaysaa haddaan ku soo dhowaado baraaruga dadkaygow adduun baratan weeyaane barashada aqoonta iyo cilmiga aad u baandheeya ka bogsada qabiil iyo sidaan horeba u sheegay bulsho weynta reer Somaliland ee ku dhaqan dalka dibadiisa iyo gudihiisaba waxaan leeyahay dadkii hantidu ka baxday oo dhinac walba leh hal isgarab taago
abaabul guddida ugu soo hagaajiyay ayaa uu madaxweyne shacbigan fariidka ee noociisa oo kale aan la helin shacbigan shacbi ka wanaagsan ma jiro shucuubta dunida ugu qaalisan buu ku jiraa waa shacbi aad ugu dhega fudud ama ugu dhega nugul qarannimada iyo jiritaanka iyo wanaagga hadday hoggaamin wanaagsan helaan shacbi ka wanaagsan oo ka horumarsan ma jiro shacbi ka faham wanaagsan ma jiro berigaa waxa weeye waxay ku guul daraysteen inay hoggaamiyaan dabadeedna buuqii iyo ishayntii iyaga dhexdooda ahayd waxay kaliftay inay xornimadii loo soo halgamay ay tuuraan waxay xornimadaa la tuuray keentay dhibaatada arkaysaan 30 sano ayaa leelleel iyo mashkilad iyo wareer lagu jiray la soo noqoshadii Soomaaliland intaanay la soo noqon dadkani way qaxeen dhibaata ku dhacday waa ogeydeen waxa weeye bannaankay ubadkoodii iyo xoolahoodii iyo dadku wixii ay hayeenba bannaankaasi ka fadhiisteen dabadeedna teendhooyin bay galeen meelaan waxba lagu hayn bay tageen bal shacabkan inuu cajiib yahan idiin sheegayaaye maalintaa waxay sameeyeen wax aad u yaab badan waxay sameeyeen inay midoobeen oo suuqyo qurux badan samaysteen oo guryo qurux badan samaysteen oo baacimushtar samaysteen oo nalal ka abuureen meeshii aan waxba ka jirin ilaahay uu ka soo gudbiyey maalin adag bay ahayd dad badan oo iminka nool oo iminka taariikh u haysta uun oon iyagu aan jirin berigaa baa jiray oo dad waaweyna oo carruura leh laakiin waxay ahayd maalin dhoweyd bay ahayd annaga marka naloo eego waxa weeye dhibaatadii nooca ahayd shacbigana wuxuu kaga soo baxay midnimo iyo adkaysi iyo wada socod ayuu kaga soo baxay dhibaatooyinku markaa maalinba mid baa joogta maanta runtii dhibaatadan ka dhacday Hargeysa waa dhibaato maaliyadeed weey ilaahay naf way nooga ilaaliyay waa ogtiin wax ilaahay loogu shukriyo weey inaanu hal qof ku dhiman wax weyn